mas aad u weyn welibana nooca kabraha ah oo suntiisu ay aad u halis badan tahay ayay la dagaalaysaa gabadhan. hadda waxaad isweydiinaysaa maska iyo gabadha maxaa ka dhexeeyo? ma gurigeeda ayuu ka soo galay, ma jidka ayuu istaagay, mase ayada ayaa iska soo damacday oo maska ay rabtaa inay iska disho? arrintu waa ay ka duwan tahay arrimaha aan soo sheegnay oo dhan. si aan u wada ogaano xaqiiqda dhabta fadlan sheekada like inoo saar. haddii ay tahay marka ay kugu horeysay ood soo boqoto janaalkeena Dhalaan Koris, waxaad ogaataa inaad timaaday goobtii saxneed oo aad ka heli lahayd sheekooyin ku xiiso geliya. ha iska hilmaamin inaad subscribe saarato, sidoo kalena aad gambareelka u furato. beri hore ayaa waxaa jiri jiray gabar yar oo lagu magacaabo June. waxay awood u lahayd maska inay qabato ayadoo aanan ka baqin, halka dadka kale ahaayeen kuwa aad uga baqa masaska, balse ayada geesinimadeeda daraadeed way qaban jirtay kadibna way iska tuuri jirtay maska. sidoo kalena waxay ahayd gabar dadka caawisa, inkastoo ay faqiir ahayd oo aysan xoolo badan lahayn, waxay dadka ku caawin jirtay waxa yarka ah ay hesho. mar walbana waxay ku fikiri jirtay inay shaqo hesho si ay dadka u caawiso lacag badan haddii ay hesho. maalin ayadoo wadada socota ayaa waxay aragtay islaam waayeel ah oo mas soo weeraray. gabadhii June ahayd way soo carartay, kadibna maskii intay qoorta ka soo qabatay ayay tuurtay. sidaasna waxay ku badbaadisay islaantii waayeeshaheed. islaanta ayaa June ku tiri, gabaryahay waan kaa yaabay sida xirfadda leh aad u qabatay maska, anigana aad igu badbaadisay. sidii hataaba waan ku mahadcelinayaa, aad ayaad u mahadsan tahay. June ayaa waxay ku tiri, waa la isku leeyahay qof dhibaataysan inaad caawiso maahan in lagaaga mahadceliyo, xirfadan kaliya nafsadeeda inaad ku difaaco ayaan u bartay ayay tiri. islaanta haddana waxay ku tiri, gabaryahay waxaan ahay aniga dhakhtar, meelahan ayaana deganahay, waxaan arkaa inaad tahay gabar howlkar ah welibana geesiyad ah. waxaan jeclaystay inaan cilmigayga wax kaa baro, welibana aad xoogaa yar ii shaqaysid adigoo iga baranaya sida daawooyinka loo sameeyo, ardaygayana noqonaya. wax badanna waad iga faa'iidi doontaa. gabadhii markii intaas maqashay waxay biistiri, soo ma ahayn dhakhtar waxaad ku riyoon jirtay, alla maanta nasiibkaa wuu ku soo doontay, welibana lacag badan ayaad ka samaynaysaa, dad badanna waad caawinaysaa. waayaha ayay ku tiri, waan ogolahay. kadibna way isu soo raaceen June iyo islaantii waayeeshaheed, gurigaan ayayna imaadeen. June oo ahayd gabar aad u wanaagsan ayaa hawshii loo idmaday ay ahayd inay guriga nadiifiso, qurxiso, raashinka u soo diyaariso, maalin walbana sidii loogu amray ayay samayn jirtay. islaantan waayeeshahani waxay akhrin jirtay buugaagta caafimaadka ayadoo waqti badan u heshay. sidoo kalena June cashiro ayay siin jirtay. maalin ay islaantii waayeesheed waxay ku tiri, gabaryahay aniga waan sii duqoobayaa, waxaana rabaa xirfadayda oo dhan inaad iga guuriso oo aad iga barato. mustaqbalka dhowni adiga ayaa noqon doono dhakhtarka ugu weyn magaalada degan tahay, balse waa inaan imtixaan adag ku marsiiyaa. haye ayay tiri, diyaar ayaan u ahay imtixaan walbo. islaantii waayeesheed ayaa waxay ku tiri, waxaan rabaa inaan sameeyo daawo lagu daaweeyo cudurrada adduunka oo dhan ka jira, taasoo dhakhaatiir badan ay isku soo dayeen balse ay ku fashilmeen. daawadaas waxaa laga sameeyana waa maska suntiisa, waxayna ku jirtaa hal mas oo keliya, kaasoo keenta dhexdiisa jooga. waa mas awood badan, cid u dhowaan kartana ma jirto. aniga waan isku dayi lahaa balse waan gaboobay oo ma awoodi inaan maskaas soo qabto. gabadha waxay ku tiri, ha ka welwelin macalinkaygiyow, aniga ayaa kuu soo qabanayo oo halkaaga kugu keenayo, balse sidee ayaan ku soo qabtaa? islaanta ayaa ku tiri, keenta dhexdeeda waxaa maro webi, wadadaad u maraysidna waa mid fog welibana halis badan. meesha markaad gaarto waxaad sugaysaa habeenka saqda dhexe markii la gaaro, welibana dayaxu oo soo iftiimo oo meesha oo dhan ay iftiin noqoto. markaas kadib ayuu masku ka soo baxayaa webiga, waana marka kaliya aad jaaniska u haysatid inaad soo qabato maska. June way soo baxday ayadoo raacaysa tilmaamihii ay soo siisay macalimadeeda. waxay u soo dhawaatay webiga ayadoo sugaysa dayaxu intuu ka soo iftiimayo, welibana iftiin buuxa uu yeelanayo. June waxay iska hubisay meesha inay tahay meesha macalimada usoo tilmaantay. markay xaqiiqsatayna inay timaaday meeshii saxneed oo weliba masku ka soo muuqan lahaa, dib ay u laabatay ayadoo gashay geed gadaashiisa, ayadoo sugaysa maska ilaa uu ka soo muuqanayo. welibana hurdo ayaa ku qabatay, balse way is adkaynaysay. waxay maqashay cod iyo sawaxan, kadibna waxay baaragtay xayawaano ordaya, welibana usoo ordaya dhankaas iyo webiga. waxay istiri, ma biyo ay ka cabi rabaan webiga? wax ka yaabiya ayay aragtayoo daqiiqada yar kadib webiga dhexdiisa ayaa waxaa ka soo baxay maskii weynaa. welibana xayawaanadoo dhan way sugayaan oo maska xayawaanadan ayuu boqor u yahay, welibana waa u taliyaa. keentaasoo dhan isaga ayaa ka taliya, isaga ayaana ka amar qaadanayaan, wuxuu u sheegana way dhegeysanayaan. gabadhii way la yaabtay maskan iyo xayawaanadan siday u adeecsan yihiin oo uga amar qaadanayaan. kadibna waxay tiri, waa inaan qabtaa maskan oo aan ka gaarsiiya intuusan laabanin. xayawaanadii ayay kala ceyrisay ayadoo u adeegsatay
qoray uu dabkaga darnaa kaasoo toosh ahaan ay u adeegsanaysay. kadibna weji ka weji ay u soo hor istaagtay maskii waxayna ku tiri masyahow waa inaad isoo raacdaa amarkayga inaad qaadataa maantana ma awoodi doontid inaad iga badbaadid. kadib maskii waa ku soo booday balse gacanta ay isaga qabatay. June waxay xariif ku ahayd sida masaska la isaga difaaco. maskii waa uu awoodi waayey inuu qaniino ama dhibaato u geysto. ugu dambeyntiina waa uu ka baxsaday gacanteeda isagoo isku bedelay mas aad u weyn.